bilihii ugu dambeeyay labada dal ee Eritrea iyo Azerbaijan waxay isku ahaayeen qir iyo qir xaaladooda meel aad u daran ayay maraysay hase yeeshee dad badani ma aysan ogeyn nuxurka waxa ay labada dal si dhab isugu hayaan taasoo dawladda Azerbaijan aysan doonaynin inay ka hadasho sida dhabta ah ee wadamada isku qabteen hase yeeshee muddo kadib ayay dawladda Azerbaijan waxay ogolaatay inay shaaciso macluumaadka maraakiib aad u hubaysnaa oo agab aad u xoogan siday taasoo ay duwatay dawladda dalka Eritrea haatana arrintu waxay sabada soo dhigatay soona dhaxgalay una muuqda inuu ku dhaxdhacay dabin aad u xoogan iyo shirqool siyaasadeed kii ugu weynaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya kusoo dhawaada barnaamijkeena warwareyn oo aad maanta ku ogaa doontaan warar sirdoon iyo baaritaan aad u xoogan oo aynu sameynay dalka Azerbaijan inay casuumaan madaxweyne Afrikaan ah isla markaana dal aysan cilaaqaad la lahayn muddo aad u dheer balse Soomaaliya iyo dalka Azerbaijan waxay isku daba mareen markii ay Azerbaijan xornimada ay ka qaadatay midowgii Soviet ama ay ka go'day Soomaaliya markaas waxay noqday markii ay burburtay 1991 inkasta oo xilligii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee cilaaqaadka labada dal uu soo noqday isla markaana safiirkii dalka Turkiga u joogay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya loo magacaabay in uu wakiil ka noqdo qadiyada Baku haddana ma gaarsiisnayn ilaa xad labada dal inay isdhexgalaan baaritaano aad u xoogan oo aynu sameynay sababta ugu weyn hadeerto dawladda Azerbaijan ay u casuuntay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay ku soo qayootay inay jiraan laba sheeko bishii September ee sanadkii hore ayaa dawladda federaalka ilaa iyo bishii lixaad waxay dalbanaysay in madaxweynaha Soomaaliya uu tago Baku xasan sheekh maxamuud oo la ogaaday in uu wadamo gaaraya 29 dal isagu ka dalbaday booqashooyin lana sheegay in 9 kamid ah wadamadaasi ay la hadirtay aysan u soo jawaabin ay Azerbaijan ugu dameysay hase yeeshee Azerbaijan ayaa la sheegay in ay muddo 4 bilood ku dhawaada ay warwareejinaysay in xasan sheekh maxamuud ay aqbasho sabab la xiriira waxyaalaha uu ka rabo oo goorsi horeysay ajandayaasha lagu daray ay kamid tahay dayn iyo deeq labadaba inta badan wadamada caalamka ayaa aad uga warwareega kulanka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo inta badan dalalka weydiiyo mashaariic dhaqaale iyo sidoo kale arrimo uu u sameeyo oo ay kamid tahay tii Jarmalka ugu dameysay oo uu ku bedeshay dhaqaale aad xoogan iyo lacag kadib markii uu ogolaaday in dadka Soomaaliyeed ee iyagu halka nolosha u raadsaday la soo celiyo hase yeeshee Azerbaijan ayaa la sheegay in ay mowqifkeeda ay bedeshay kadib markii ay Soomaaliya u baahatay dabayaaqadii bishii November ee 2024 ayaa la sheegay in dawladda dalka Eritrea ay qafaalatay 3 markab oo waaweyn oo dalka Azerbaijan ay leeyihiin waagaasna dawladda dalkaasi kamaysan hadal inkastoo la aaminsan yahay in qadiyadu ay bilaabatay bishii November 7deedii haddana ugu dambeyn waxaa la sheegay in malaha 7dii bishii November ay maraakiibtani ka gudbeen gacanka loo yaqaan Suez Canal isla markaana waxay doonayeen inay badda cas ay raacaan si toos ah ayna ku xidhaan magaalada caasimadda ee Djibouti ee jamhuuriyadda dalka Djibouti baaritaano aynu sameynay ayaan ku ogaanay in maraakiibtani ay ahaayeen kuwo hub iyo agab aad u xoogan sida intayna soo noqonin meeshay hubka u sideen iyo cidii u rarnaayeen marka horeysa maxaa dhacay markaan baaritaan ku sameynay waxa dawladda dalka Azerbaijan ay ka qortay arrintan waxa kaliya soo xiga karna afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Azerbaijan oo arrintaasi ka hadlay Arbacadii dhaweyd markii ugu horeysay Xaaji Saadi ayaa wakaalada wararka Reuters wuxuu u sheegay in maraakiib 3 oo 18 qof oo muwaadiniin oo dhamaantood ah ayuu yiri dad u dhashay dalka Azerbaijan ay saaran yihiin la qabtay bishii November sidaa daraadeedna dadkani ay gabi ahaanba ay u galeen halkaasi si khalad ah kadib markii uu sheegay in biyaha wadanka Eritrea sababta ugu badan ay ugu leexdeen ay ahayd kadib markii xaalad badda oo kacsan ahayd oo ay doonayeen inay ka weecdaan laakiin wuxuu diiday meesha u socdeen in ay ahayd dalka Djibouti oo wuxuu yiri dalka isku tagga Imaaraadka Carabta ayay doonayeen ayuu yiri iyagoo kasii gudbayay ayuu yiri gacanka Suez Canal waxa uu sheegay in maraakiibtan ay ahaayeen dhowr markab oo kala ah markabka weyn ee dalkaasi iska leeyahay loo yaqaan Bahalian ee asagu qaada agabka ciidamada iyo markabka kale loo yaqaan CM Egypt iyo si kale markabka saddexaad oo lagu tilmaamay markabka loo yaqaan kan ugu ballaaran ee qaybta Caspian-ka badda loo yaqaan ka shaqeeya ee agabka baaritaanadeenu hadaba way sii socdeen halka waxaanu ka raadnaa waxyaalaha soconaya Eritrea warbaahinteedu markii ugu horeysay ee wax ka qorto arrintan ayaanu baaritaan ku sameeyay warbaahin la yiraahdo Barkana ayaa arrintan wax ka tiri waxayna sheegtay in maraakiibtan ay ahaayeen kuwa dagaal oo sida agab aad u xoogan una rarnaa dalka Ethiopia ayay u rarnaayeen hubkan iyo agabkan waxa la aaminsan yahay in markii u horeysay asal ahaan laga keenay Israa'iil baaritaanadu way sii socdaan waxayna u muuqataa in Soomaaliya dhax gashay mid kamid ah xarkihii ugu khatarta badnaa iyo waliba layman isku wada xiran Israa'iil ayaa la aaminsan yahay hubkan iyo saanadan ay u soo rartay dalka Ethiopia dabadeedna si ay u soo raad gadato Israa'iil waxay ka soo wareejisay dalka Azerbaijan oo ay cilaaqaad aad u fiican wada leeyihiin dabadeedna iyadoo Azerbaijan ay si raad gadanayso ayaa maraakiibta ciidankeeda qalabka sida lagu wareejiyay agabkan qaada
halkaana dowladda dalkaasi waxay sheegtay in maraakiibteeduna si u raadgataan ay doonayeen inay aadaan dhinaca Dubai laakiinse ma aha meesha u socdeen Dubai iyo Djibouti xogta seen ku ogaanay gaar ahaan warkaalada wararka Burkina waxay sheegtay in ay sideen hub aad u culus walxa qarxa diyaarado droonisa agabyo kala duwan iyo kuwa wax lagu basaaso warbaahin fadhigeedu uu yahay dalka Mareykanka oo Ethiopia ay leedahay in baaritaano aynu ku sameeynay inta baaritaano ku guda jirnay aynu ku ogaanay inay wax ka ogeyd arrinta wax ka qortay waxaana ku tilmaantay in hub kari uu yahay hub la doonayo in wadamada dariska geeska Afrika lagu weeraro ala iyo kul xal hubkii iyo sanadii waxa gacanta ku dhigay ciidamada cawaandiga ee wadanka Eritrea kadib markii biyahooda ay soo galeen dowladda dalka Azerbaijan iyadu waxay kaliya ku tiraabtay inay maraakiibtan ay ahaayeen kuwa la qabsaday bishii November 7 sanadkii hore dabayaaqadiisii dabadeedna dowladda dalkaasi waxa ay sheegtay in agabkan ay ahaayeen kuwa iyadu iska lahayd oo u socday dalka isku tagga Imaaraadka Carabta balse xaqiiqdu taa way ka duwan tahay wayna ka fogtahay waxay ahaayeen agab iyo droono casri ah diyaarado yaryar iyo sidoo kale gantaalo trapela iyo wax loogu yeeray raadaaro yaryar oo dhamaantood la aaminsan in lagu soo farsameeyay dalka Israa'iil baaritaankeena inta ku guda jirnay waxaan ogaanay in dowladda Israa'iil ay fulinaysay heshiisyo hore aan uga hadalay oo wada gaareen iyaga iyo kooxda Ethiopia taasoo ahayd in ciidamada Ethiopia ee doonaya aakhirka in ay yimaadaan badda Soomaaliya qaybta badda cas la hubeeyo halkaana lagu adkeeyo la sii qalabkii u baahan yihiin heshiis dhexmaray Ethiopia iyo Israa'iil bartamihii bishii 6 ee sanadkii hore ayayna ku shaacinay inaan ku ogaano xog aad badan waxaan la sheegay inay tani ahayd jawaabta ugu horeysay ee dalka Israa'iil uu bixinayay Israa'iil waxaa lagu qanciyay in Xuuthiyiinta si looga soo weeraro loogana cururqeeyo dhinaca badda cas inay khasabtay inay Israa'iil taageerto qorshaha iyo hindisaha ay ku doonayso dowladda Ethiopia inay ku qabsato badda Soomaaliya taana waxaa si dhab ah u dhabeeyay una rumeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo 12 bishii 12 ee dabayaaqadii sanadkii hore wada hadal kula galay gudaha magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga ra'iisul wasaaraha maamulka Ethiopia Abiy Ahmed kaasoo gabi ahaanba hore u sii dhaqaajiyay qorshaha Israa'iil danta ay leedahay ee arrintan ay ugu dhex jirtay waxa weeye in ay heshay ballanqaad uga yimid dhinaca Ethiopia oo ah maadaama Soomaalidu ay yihiin muslimiin haddana sidoo kale aysan awood badan lahayn haddii ayaga lagu taageero qorshahooda qabsashada badda cas iyo inay saldhigyo muhiim ah ka helaan inay keeni karaan gabi ahaanba inay kooxda ay ugu yeedheen inay tahay kutu argixisa oo Israa'iil ka gowdisay maraakiibteedii badda cas ay gadaal ka soo weerari doonto halka deegaanka Saylac iyo agaga kale istaraatiijiga ah oo dhan ay ka soo gudbi doonto fulinta heshiiskan ayaan ahayd qadiyad haddaba dalka Azerbaijan oo iyagu gabi ahaanba fahmi la sababta oo madaxweynaha Soomaaliya iyagu u soo qoraansaday ayaa la sheegay inay uga faa'iideysteen arrinta sababta ugu badan ee Xasan Sheekh Maxamuud hadirta loogu yeeray waxa weeye in dowladda Eritrea oo cilaaqaad wanaagsan ay Soomaaliya leeyihiin inay u sheegto in maraakiibtaasi la sii daayo hadirta Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ergay ayuu soo noqon doonaa waxaana laga yaabaa in safarkiisa kan ku xiga uu ku tago dalka Eritrea si uu u soo furdaamiyo maraakiibtaasi saddexda hase yeeshee qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee dalka Ethiopia ayaa kulkii ugu horeysay qiray in ay jiraan qorshayaal dhowr waxaa la ogaaday in bishii September ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha maamulka Ethiopia oo la yiraahdo Tsemke Truni uu booqday Israa'iil kadib booqashadiisa Israa'iil uu mar kale uu tagay dalka Azerbaijan magaalada Baku ayadoo la sheegay halkaasi inay kala hadleen sida loo soo shaxeynayo soo gudbinta agabka iyo qorshayaasha hubkan miisaaman ee aadka u xoogan dowladda Eritrea gabi ahaanba cilaaqaad wanaagsan lama laha Ethiopia sidaas daraadeedna waayadii ugu dambeeyay oo dhan Eritrea madaxweynaheeda Isaias Afwerki wuxuu ku adkeysanayay in gabi ahaanba wadankiisu uusan ogolaadoonin wax huba iyo wax saanada oo badda cas u mara maadaama Djibouti ay heshiis istaraatiiji ay kula jirto dalkaasi waxaana loo arkaa marka ka dambaysan in heshiisyada istaraatiijiga ee ay kula jirto dalkaasi ay ka mid ka tahay in hubka iyo saanada Ethiopia oo dhan wadamada ay u soo mariyaan badda Djibouti iyo dalka leeyahay Ethiopia waxay leeyihiin heshiisyo istaraatiiji ah iyo siyaasad midaysan waxaana ay siyaasadda ugu muhiimsan ee tan dhaqaalaha amniga iyo tan siyaasaduba ay ku dhamaataa dalka Djibouti marka laga hadlayo dalka Ethiopia oo ay saaxiibo dhow yihiin cid walbana iska xigaan hase yeeshee arrimaha hadarta soo baxay waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu galay shirqool khatar ah oo aad iyo aad u xooggan dadka aadka u yaqaana dabeecadaha madaxweynaha wadanka Eritrea Isaias Afwerki waxay ku tilmaameen inuu arrintan aad u dhibsan doono haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo qanaco isagoo oo ku bedelanaya waxooga dhaqaalaha iyo sidoo kale Suuriya aad u fiican oo la sheegay in ay dalkaasi bixiyaan Azerbaijan uu ola tago madaxweynaha Isaias Afwerki wuxuu aaminsan yahay in si aad u dhaba gabi ahaanba loo dedejiyo isla markaana loo dhabeeyo arrimaha qaarkood ee ugu yeeray inay ku jirto baa leeyahay in la cunaqabateeyo Ethiopia Eritrea badeedu gabi ahaanba aysan yeelaynin ayaa leeyahay wax ka yartaas isku soo wada duuduubo arrimahan haatan waxay muujinayaan in
booqashooyinka trabeelka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan ka fiirsanaynin iyo siyaasadaha qaarkood ee uu dhexgalayo marka u dambaysa laga baqayo inay Soomaaliya meel xun ka ridaan isla markaana heshiisyada iska soo hor iyo daba jeeda ee wadamada la kala galayo ayaguna ay khatartooda yeelan karaan xilli adduunku dal walba uu ku dadaalayo in uu iska ilaaliyo in wadankooda siyaasad ahaan ay heehaabaan